dad Soomaaliyeed oo sama jecel ah ayaa waxa ay soo gaarsiiyeen deeq lacageed magaalada Laascaanood taasoo ay ugu deeqeen dhaawacyada yaala ee ku soo waxyeeloobay dagaaladii ka dhacay deegaanada ku wareegsan ama ku teedsan magaalada Laascaanood. Maxamed Ismaan Cabdinuur Xaashi ayaa warkaasi Laascaanood nooga soo diray. علاقة في اللقاء في مكان في جودة كالبنسينة في كل المجالات الله تعالى وكسر دعوة عمي مجالات الواقع كده على البلاد ككونفراد المجالات الله تعالى وهو شهود الحياة إذا ماذا معمل كسرنار الآن إذا ماذا معمل كخاطبة بيش محمد عارفية وعي شهود في كل كلمة مع حاجات جدا وما كافنا عرفوا في شيء أنا ماذا كده في المجالات الله تعالى كافية ستة في المنطقة اللقاء في تذكر مكان كان شيفا في كل في وين المجالات الله تعالى في الكلام عن جد على حاجة عربية في مدينة لاascaanood muhiimadda aynu isugu nimi waxa ay tahay inaanu guddoonsiino walaalihii dhibaatadu ay ka soo gaadhay shaqaaqadii ka dhacday dhawaan gobolka Sool taasoo ay markaa ahayd dad dhintay iyo dad dhaawac noqday oo u qaybsan laba qolo dhaawac culus iyo dhaawac fudud iyo dad markaa la xiray oo markaa jeelasha ku jira oo ay soo dhiibeen walaalaha beesha Maxamed Harti jaaliyadooda wadanka Mozambique marna uma naqaynaa dadkan la soo baxay lacagta sadaqada xulanahay meeshii aad ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay idinku bedelo baalanahay dadkaas waxaanu ka balan qaadaynaa wixii sida ay ugu talagaleen inaan u gudbino sida hadartay warkaan tahay way waxay naga soo codsadeen in dadka ay gaadho arimeelka lacagtu الرحمن الرحيم وانت علماء الشيغان إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا dadka laga dhintay Ilaahay caawil khayr qaba Ilaahay ugu bedelo oo yani u gadaal mariyaan ka barina adduunkan saacad baa lagu tagayaa oo laga tagayaa oo qof waqtigiisu noqonaya qodobka kale waxa weeye dadka walaalaha telefoonka nagu soo hadlay inana sida ay bin ugu gudbinayna insha Allah saas bay u daawan doonaan dadkii lacagta soo ururiyay ehelka ahaa ee dadka dhintay dadka dhaawacay dadka maxaabiista u soo diray marka hore waxaan loo mahad celinaa Ilaahayna waxaanu uga baryanaa meesha ka wasaaray wax san la ugu bedelo waxaan kula halka ugu gudbayaa dadka wixii loo soo dhiibay loo keenay wayna soo gaarsiiyay si fiican oo sharaf leh waxaan leenahay kuwa soo bixiyayna Allah meesha ka soo bixiyay Allah u barakeeyo